إن شاء الله تعالى. عيقو اسكري عبد الرحمن سؤال شيخ ويديني وحويان waxaan xadiiskii aanu maqlaynay kamida leysa minna man qaatala lil asabin inta ugu badanna waxaynu xooga saarnaa in siyaasiyiintu ay aad u adeegsadaan laakiin bulshadeena waxa ku jira walow sheekhu imika intan dambeyntaan su'aasha qortay kadib uu ka jawaabay in halka asaasiga ee wadaadada ay aad u yar dhex saaqantay sheekhu inta ugu badan wuxuu ku dhex jiraa markaynu hargeyso kaliya teegayno in la oran karo waa intii reerkiisa ama masaajidadu halkay u badan yihiin manaasibta ugu badan sheekh waxa laga yaabaa inuu daan kale aanu masaajidkeeda aanu u hanqal taagin ama aanu ka soo jeedin waxaan badanka aragnaa ururka ciwaaq iyo dhalinyarta halkan timidayba waxay iyaguna doonayaan bal istabis la yidhaa 1 2 3 ayaynu kaga bixi karnaa haddeen taa samayno waayo hadal badan iyo muxaadarooyin weyn ka dhereegnaa badanka hadal baan odhanaya horta intaan su'aasha odhan aniga iyo labada nin halkaa fadhiyaaba ciise muusaan nahay kule anigu waxaan jecelahay ciidagale su'aasha musaan u leeyahay waxa weeyaan taa hore maaha qabyaaladdu waa jacayl iyo nacayb bay u dhacaysaa tadambeynina waxa weeyaan qabyaalad waa waxaan anigu isku ogahay oo waa qabyaalad aan ku waan nacabahay ama waan jecelahay reer marka waxayna ka bilaabantaa nin iyo gabadh qabyaaladdu marka dadka loo qaybiyo nin iyo gabadh abuurta lagu kala qaybiyo waxaana ku dhamaataa midabka ama isirka waxaan u malaynayaa qabyaaladda ayay diintu qoonsatay marka xalka maxuu yahay inay xunta waa la isla wada ogyahay culimaduna waxay odhan jireen qofku waxa fiican caqiidadiisa dadka inuu soo bandhigo waayo hadduu khaldan yahayna waxa odhan waa khalad iska daa hadduu saxsan yahayna dadka laftoodii buu raad fiican uu ku yeelanaya labada su'aalood waxaan u malaynayaa ee labada dhalinyarta ay la weydiiyeen inay isku mid yihiin san anigu u fahmay weeye xalku meel labadooda ku saabsan yihiin wacyigelin in fara badan ayaynu maqalay in badanna waa la soo waday maxaa markaa xal noqon karaa intaanan taasi u gelin su'aasha inankaas iga raallo magacaaga waan ilaabay sakariya waxaa la socotay culimada laftooda iyo mashaayikhda dadka diinta u xambaarsan waxaa laga yaabaa inuu xaafadoodaasuun joogo xaafadaha laftoodii baa iska reer noqdeen dadku reermihii bay ahayn berigii hore reer bay u kala deganaayeen tii un baynu magaaladana la nimi lafteeda oo dadku xataa way kula yaabayaan haddaad degto xaafad reerkiinu uu degan yahay xaafadaan ahayn mar baan anigu waxaan deganaan jiray qoladeeda waa ka ninkaas sheegee waxaanan malay marka hore waad iska wada garanayseen waxaan deganaan jiray qurac dheer halka waxa weeyaan isgoyska jarato halkaasaan deganaa habeenkii inta darsi ku dhigo masaajidka la yidhaahdo xawaadle shaqaadansiira uu ka khudbadeeyo aan halkaa ka tegi jiray oo halkaasaan ku hoyan jiray dad badan baa ila yaabi jiray oo odhan jiray miyaanad ka baqanahay in lagu dilo war waxaan dilayaa waa maxay maxaa laga dilayaan sameeyay anigu waxa kaloo dhacday halkan imika deganahay bal waxaan idiin sheegayaa qabyaaladdu inay meel ay ku istaagta aanay lahayne waxa degan reeraha dee abtirsiinta meel aan isugu nimaadno koley dadku meel bay isugu imanayaan ilaa marka u dambaysa nabi aadam la isugu yimaadeen jagadan doonaya guriga inaan ka dhistaa waxoogay kala yara sarreysay oo nin cagaf futaan u yeedhay kuuri cagafta ii geliyo isku sig tira wuxuu yidhi sheekh ma halkana degaysaa waxaan ku dhahay halkanaan degaya wuxuu igu yidhi sheekh aan kula taliya halkan ha degin xaggaan degaa meelaha reerku ay degan yihiin haddii la islaayo dee markiiba gacanta ku soo gaadhaysa wuxuu leeyahay hadda sacad muuse dhex degayna ciise muuse halkay degan yintay baasha halkay naga marayso wax dhibina markaa ma taagnee mustaqbalan buu ku leeyahay dagaal bay dadku diyaar isaga wadayeen qabyaalad ku salaysan mustaqbalan haddii la islaayo si reerkiinu ay ku difaacaan dhexda reerka laftiisina ogowo way sii kala furfurmayaan soo maha oo ciise muusiba iyaguna dee reer sii kala noqonaya
mid ka mid haddaan dhex tagana tiun baa imanayso ila iyaguba dhexdooda marar badan bay islaayeen marka taariikhda dib aynu raacnee waxa wuxuu odhan doonaa uun jilibkan maaha jilibkiinniye ka tago qolada hoosuba usii dhaadhici doonta baashu ilaa marka dambe ay gaadho ninka aad kala bahdatiin ka fogowo kaad isku bahdatiin oradoo agdeg marka arrintaad sheegtay ku saabsan culimada waxyaaba aynu doonayno inaynu daweynay ka mid tahay wadaadadu horta waa bashar dadka oo kale ah sax iyo khalad labadaba way leeyihiin yaan malaa'ig loo qaadanin inkastoo dadku khaladka wadaadka had iyo jeer ala weynaysa ay saaraan sheekh ka mid a culimadeeda waaweyn oo reer Yamaneed ah wuxuu odhan jiray dadka aan iyagu cilmiga shariicada baran waan ka yaabaa buu odhan jiray waxay doonaanba iyagu walaaqanayaan laakiin qof wadaad hadduu khaldamo khalad yar u galo weynaysay saarayaan waa bashar adigoo kale yukhti wa yusiib marka waxay ka mid yihiin dadka cudurrada noocaasi ay geli karaan aynu doonayno inaynu ka daweyno qofle tilmaamihii saxda ahaa ee imaam ay ahayd inuu lahaaday rasuulku sheegay soo nabigu ma oran ummul qawm aqra'uhum likitaab illah dadka waxa tukinaya ka kitaabka ilaahay ugu xifti badan isagu wuxuu oranayaa in reer hebel ay doona marka masaajidka laftiisa ay soo galayso masaajidda reer iyo qabayl isku haystaan waxa bad la isku qaatay laftooduna waa jiraan laakiin inaga mushkilada ilaahay sabab diinna wax ku qiimeyn mayno danteenu waxa ay tahay wax ku qiimeyn mayno raadu ka waran mayno yaa diinaha wanaagsan yaa toosan yaa aamina oranna mayno waa inaga keeba inoo dana oo masaalixdeena iyo danaheena ina gaadhsiinaya inuu halkaa marayno xataa xukunku inaanu noo hagaagahayn dadkeena soo ma arag marka horena si khaldan bay wuxuu dooranaya marka dambana iyagunbaa qaylinaya kii iyagu ay qabyaalada ku doorteen bay ka qaylinayaan ninbaa wuxuu igu yidhi saaxiib nahay ninkii ay reerka iyagu golaha deegaanka doorashadiisa u soo sharaxeen isagoo sirkhaansan ayuu laamida madaxtooyada hormarta gaadhigiisii intuu istabnigii ka furtay oo kala degay ayuu laamida dhigtay oo u seexday reer baad ka soo sharaxay oo waana ogyiin inuu sidaa yahay oo qabyaalada raadkeeda xun nin kale odayina wuxuu yiri inaan kaan adeerka u ahay aan golahaasi la doonayo inuu galan u ololeynayo gurigayga markuu yimaado moobiladii waxyaabahaasi waxa inoo baydhiyo inoo meelaha ku qariya hadduu cid la ka helo gacanta kaga dhacaysa hadda waxaanu ku wadaa inuu caasimada ninka u talinaya inuu noqdo isagu xildhibaan noqdo kadibna maayar uu noqdo hadhow toolana isaga qaylinaya oranaya golay deegaanku waxa may qaban cadaalad ku shaqeyn maayaan waxba la boobay daadaa boobay boobku adu ka bilaabmay walaahada waxaan leeyahay xalka waxa kamida qofku inuu dadka kale u eega maaha oo naftiisa uu ka boodo inuu qof waliba isagu iska bilaabo oo isa sax qof marka loo saxmo si guudna waa loo saxmaya waana tii nabigu calayhi salaatu wasalaam ku daweeyay cudurradii ka jiray bulshadii laga soo dhex saaray dhexdeeda ka jiray qof walba isaga ayaa la hadlayo qof waliba wuxuu u fahmay quraankan inuu isaga ku socdo maanta isdhaafin baa jirta qofku isagoon naftiisa gurigiisa shirkadiisa diinta ku xukumin ayuu arintaa isdhaafinaya oo oranaya madaxdu diinta naguma xukumaan aday ka bilaabmaysa isagoo isagu qabyaaladii wada ayuu qabyaalad ka sheekaynaya marka qof waliba baashi marka la weeraafiyo qofba qof uu dhiibo uu ku xawilo goorma laga dawoobaya ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisanayna inuu khayrkii wanaagayna waafajiyo cudurrada iyo xanuunada inaga daweeyo wanaaga iyo danteenu waxay tahayna ilaahay si dhaba inuu inoo tuso rabbina subhanahu wa ta'ala oo inoo aqbalo wacyi gelinta iyo abaabulka iyo wanaag farista iyo xumaan reebista wallahu a'lam maani magacaygu Runa Xasan Maxamed weeyaan su'aashan rabo inaan sheekha weydiiyo horta waxay ku salaysan tahay aan waxaan ka soo baxay maxad dacwa waxaan maalin weyto inaan ku kulanay maxadka hortiisa gabadh waxay igu tiri adoo inta meeshan ka wada baxnay marka ardadii iskuulka ay dhameysay markaan baxnay baheed gabadh waxay igu tiri sheekh Baraawi baa qabanaya maxay heeday muxaadaro gabadhina waxaan ku wuri waa sax waaye waan imaan doonaa insha Allah hadii aan soo haleelo way igu tiri
laakiin hadal bay raacisay waayo hadal baan isdhaafsanay waxay igu tiri sheekh berbera ma imaata maxay daawa marka anigu يعني عاوقات بنفرحسن إنه كورت هجنا هاي وايو ما ربين إنه قف كله ويدي سؤال شان وايو قف كي يجي قنعنا يا وعديجا قف كسهذا كان يجي وعديجا قف كمحيلا يقص عشان توعديجا وحنا بعنا هاي هذا يروت هاي هذا يبان هاي بقى إن هذا يجي تروت qabyaaladii reeraha maaha tii reeraha maaha tii reeraha ayaa tirsiinta waa qabyaaladii wadaadada halkay u jeedo ayaan fahamsiinaya jawaabtuna waxa ay tahay maxad dacwa wallahi kulli ma xusuustaynan imi waanu malaynayaa sayna mararka qaar ku tagay tagistiisuna xaaraaniga ma aha inay xaaraan tahay uma arko isagoo qurana ma aha meelo badan oo aanan tagin oo ama goob waxbarasho ama masaajida dhulka oo dhan ama jaamacada way jiraan kullayeen wadaadadu waxyaabaha isku khilaafsan yihiinna mararka qaar kood way keenaan qabyaaladii aynu ka hadlayno way noocyo badanta waa naga idhi oo qofka iyadoon sax iyo khalad loo eegin in xisbigeega ama jaamacadeeda ma aha in lagu duro ama lagu fogeeyo ama lagu colaadiyo qabyaalada shariicadu la dagaalantay bay kamid tahay laakiin anigu taa ma aaminsani waana la dagaalamataa inta awoodayda aadna waan ugu celceliyaa in muslimiinta xisbiya loo qaybiyana aad iyo aad baan uga dayriyaa aan uga digaa waxaana idhaa caqiidada saxda ah iyo manhajka saafiga laga dhaxlay nabi maxamed iyo saxaabadiisa dadku ay isugu yimaadaan waa dhici kartaa meelaha qaarkood inaan ka taxafudo ama aan ka gaabsado sababtuna aanay ahayn wax kale sababtu ay tahay inaanan u arag in wax saxa lagu wado meelaha qaarkood halka adigu aad sheegtay yaana markiiba ha ku dabaqin laakiin meelaha qaarkood waa dhici kartaa diiniyan anigu inaan u arko caqiido saxa ama manhaj saafi inaanu ka jirin sababtan uga gaabsadayna inay taasi waxa weyn ay noqoto waan u tagi karaa si waxay ku khaldan inaan u sheego laakiin waxaan diidayaa inaan u tagaano u muujinaya inaan iyaga waafaqsanahay waxaan aaminsanahay taasi inuu khalad weyne ka dhalanayo ah dadku ay u qaataan waxa khaldane anigu aan ku saluugsanahay inuu wax sax yahay marka waa intaasuna wax kala ma aha wallahu a'lam